Assalaamu calaykum kusoo dhawaada video cusub maanta waxaan ka hadlaynaa different type of database marka database yaasha si u kala duwan yihiin waayo for example waxaad rabtaa inaad application dhistid marka applicationka dhisaysa waxaad rabtaa inaad ogaatid databaseka aad isticmaali kartid iyo maaragtay siyo sida requirementiga applicationkaada requirement wuxuu u baahan yahay waxa lagaa rabo marka videogan insha Allah waxaa ka dhigaa quick video marka overview ama maaragtay high level ahaan koob ahaan ayaan uga hadlaynaa database yaasha kala duwan iyo si ay u kala fiican yihiin marka badanaa two main database la isticmaalo waxa weeye SQL iyo NoSQL marka haddaan SQL aragno SQL waxa weeye structured query language marka language ama database waxa way structure way waayo data type-ka ama maaragtay waxaad aad ku haynaysa database-ka waa taqaanaa type-ka yihiin hadday integer yihiin string double waxay yihiin waa og tahay marka meeshaas ayaad ku haynaysaa marka idea-da behind SQL waxa weeye consistency iyo supports asset marka waxaa rabtaa haddii aad wax bedeshid waxaad bedesho waa inuu isla markii change-ga ama waxaad isla markii waa inuu meesha ku haynaa hodhowta userka haddii aad wax raadinayno ama query hataa wax ka raadina database-ka informationka waa inuu yahay waa inuu noqdaa information saxa oo maaragtay database-ka ama informationka ku dhex jira waa inuu consistency yahay oo wax hataa change karayn isla markii inuu change-ga waxeysmo marka supports acid marka acidna waa ka hadlaynaa markaan ka hadlayno SQL hodhowti inta video NoSQL waxa weeye unstructured data weeye marka type-ka ma taqaanid type-ka wuxuu noqon karaa anything uu noqon karaa idea-da behind NoSQL is to maaragtay store information marka information ayaan ku haynaynaa in a large scale marka data type-ka marka NoSQL wuxuu haynayaa millions of data types hodhowt waxaa rabnaa inaan maaragtay marka query ama marka wax ka raadinayno NoSQL waa inuu noqdaa data type waa inuu available yahay 99.99% waa inuu data available yahay marka wax raadinayno isla markii waa inaan meesha ka helnaa marka retriever waxa weeye extremely quick marka haddaan wax ka raadinayno ama query isla markii waan helaynaa oo maaragtay optimize ama faster query ayuu leeyahay saan hodhowtii haddaa wax ka raadinayno SQL-ka isla markiisaan u helno NoSQL marka labadan ayaan ka kala hadlaynaa si u kala duwan yihiin iyo hodhowtiin at the end waxaan ku tusinayaa saad u tooran lahayd kaa rabtid marka haddaan ku bilowno SQL haddaan ku bilowno SQL waxa weye saan ka hadlayno waxa weye structured database weeye marka you must define schema clearly before you add information marka si haddaad ka hadalna waxaadaan structure way waa inaan naqaanaa type marka haddaan inta aragno waxaan haysanaa row ayaan haysanaa rowgaas wuxuu leeyahay actor ID waa integer first name waxa weeye string last name waxa weeye string iyo last update waxa weeye date marka waxaan haysanaa integer weeye kuwan waa string right kuwaana waxa weye date marka intaana wax gelin SQL database intaana wax gelin waa inaan define ama waa inaan sheegnaa data type wuxuu yahay marka taas waay SQL marka relational database waa hodhowtii haddaa rabtid table badan haddaad haysatid aad rabtid inaad query dhahdid maaragtay waxaad isticmaalaysaa join right hodhowtii saad maaragtay wixii relational ama maaragtay actor ID oo last update waxaas hataa query dhahaysid waa isku keeni kartaa hodhowtiina waa ka hadlaynaa advantages iyo disadvantages oo SQL uu leeyahay marka advantages waxa weeye support asset marka asset wuxuu yahay waxa weye atomicity micneheeda waxa weeye either change happen or not marka haddaan wax bedelno waa inaan maaragtay before an update inaanan dhihin waa inuu maaragtay changegaas waa inuu isla markiis bedelaa for example haddaan x haysano x hadduu 10 yahay haddaan rabno x-kan inaan ku bedelno maaragtay 15 hodhowti hadday error ama wax hadduu dhaco
hodoti fail hadduu noqdo caseka hodoti numberkan ismuusan betelin we roll back hodoti waxaa sameynaynaa previous state ama statekii hore ayaan ku laabanaynaa wuxuu ahaa 10 marka atomicity waa simple haddii la dhaho waxa waye either it change happen or not marka saas way consistencygana sidoo kale haddaan wax bedelno wixii aan bedelno waa inuu ahaadaa consistent waa inuusan isbedelin example haddaan dhahno for example y waxa waye 15 hodoti y haddaan ku bedelno 20 haddaan ka dhigno hodoti query ama haddaan databaseka haddaan aadna rabno value y-ga na siiya hodoti waa inaan 20 helnaa haddaan 15 hadduu 15 na siiyo hodoti consistency maaha marka consistency waxa waye haddaan wax bedelno isla markii wixii aan bedelnay waa inuu ahaadaa waxaan ku bedelnay 20 marka haddaan y raadino y waa inuu noqdaa 20 haddaan 15 helno consistency maaha marka SQL waa wuxuu kaa caawinaya atomicity haddaan wax bedelno waxaan bedelno waa inuu maaragtay uusan isbedelin consistency haddaan daarada haddaan update ku sameyno ama delete haddaan dhahno wixii aan recently ama waxaan hadda ku sameynay waa inuu maaragtay ahaadaa updated waa inuu consistency ahaadaa isolation waxa weeye maaragtay waa haddii for example bank ayaan isticmaalayaa bankigaya waxaan rabaa transfer inaa dhaho from money inaa transfer ku dhaho from one account to another account marka wixii aan maaragtay stateka aan ku sameeyay haddii for example checkingkeya haddaan lacag ka qaado oo ku diro savingkeya hodoti changiga waxaan ka helayaa marka hadda for example 20 inta haddaan ka qaado inta ku rido hodoti isolationka state waxa waye 20 haddaan ku gelino meesha 20 ayaan arkaynaa haddaan 20 ka jarnana meesha 20 ayaan arkaynaa marka maaragtay concurrent marka labada waxyaabood way isla wada socdaan hodoti wixii haddaan bedelno isla markii waan ku arkaynaa hodoti waa independent waaye oo maaragtay wixaan inta ka bedelno inta waad ku arkaynaa laakiin labada isla markii ma arki karno marka isolationka durabilitygana waxa weeye maaragtay markaan wax bedelno waayo step by step waaye markaan wax bedelno haddii wixii aan bedelno reverse ma dhihi karno oo undo ama ma celin karno for example update ayaan waxaa sameynaa for example x wuxuu ahaa 15 ayuu ahaa 15kii update ayaan ku sameynay waxaan ka dhignay 20 markaa ka sameyn update anad markaa ku dhufanay update ayaa waxaa for example internetka ama wax ayaa dhacay oo korontadii ayaa tagtay wixii aan update dhahnay waa undo waayo ma bedeli karno marka durabilityga waxa waye successful haddaan wax si fiican u bedelnay oo update markaa dhahnay we cannot reverse back to previous state marka durability saas way marka SQL wuxuu kaa caawinayaa consistencies oo marka SQL haddaan aragno waxa weeye high consistency iyo high availability marka waxaan bedelno isla markii change ayuu noqonayaa hodotina changegii markaan sameyno available waa noo diyaar oo haddaan query ku dhahno hodoti waa raadin karnaa sidoo kale maaragtay complex query marka for example haddaan raadinayno specific item in the list for example haddaan dhahno give us where actor id equal 1 hodoti kan waa specific query weeye hodoti wuxuuna siinayaa actor id-ga wuxuu yahay meeshuu yahay 1 hodoti wuxuu noo soo saarayaa last namekooda last nameka first name iyo dateka update dhahnay marka advantages waa saas wey marka we can do complex query relational hodoti labada actor haddii move iyo waxaas la sameeyin where meesha isla sameeyin kuwan dhan waa sameyn karnaa SQL waa advantages kuu leeyahay weye disadvantages waxa weeye difficult to change or modify schema for example haddii aan waxaan sameynay table ayaan sameynay tablekaas wuxuu leeyahay maaragtay few element ayuu leeyahay hodoti haddaan rabno more element inaan ku darno oo hodoti another table haddaan ku darno hodoti waxay noqonaysaa wixii aan ku ridnay inaa haddana mar laba new database inaan sameyno hodoti skiimaha aan ku darno marka saas ayuu maaragtay SQL kuusan u fiicnayn waayo haddaan maaragtay wax bedelno ama schema change haddaan for example 1 year kabacdi applicationkan waxaan rabnaa inaan maaragtay
new row aan ku dhex ridno tablekeena hodhowti waxay noqonaysaa wax kasta oo sanadkaa dhan oo dheera ahaan ku ridnay inaan maaragtay new schema inaan sameyn marka aad iyo aad ayay u adag tahay haddii aan modify aan update ku sameyno sidoo kale licenka ama maaragtay haddii aad enterprise application iyo haddaa rabta inaad ku samaysatid oo ama isticmaashid oo bil kasta lacag waxa bixisid qaali ayay noqonaysaa waayo SQL waxaan u baahana inuu all the time waa inuu ahaadaa maaragtay higher availability iyo scalability hodhowti wax haddaa saan ku sameyno hodhowti lacagta little bit more ayay noqonaysaa oo way badanaysaa sidoo kale joint overhead of marka dhibka jira waxa weeye haddii aan maaragtay 15 tables haddaan isku wada keenno saan u isticmaalayna maaragtay joint hodhowti processkan waa slow process waaye of course waxaa jira maaragtay algorithm oo la isticmaali karo sida maaragtay material view iyo maaragtay indexing kuwaas waa it helps you improve your query laakiin haddii aad maaragtay join waxaa isticmaalayno waa it takes longer process hodhowti slow iyo waxaasu noqonaya hodhowti applicationkaada userka waa inuu few 15 second waxaas inuu sugo waa intaan wax helayno marka ma fiicna sidoo kale doesn't work well with unstructured data marka haddaada waxaan ka hadlanay schema waa inaan sameynaa right so haddii maaragtay aan gelin waxaana for example inta haddaan ku aadno inta waxaan haysanaa waxa waa integer string date hodhowti wax kaloo dheeraad haddaan ku ridno for example aana defined for example double for example waxaan rabnaa another double inaan inta gelino right doublekaas manoo isticmaalayo waayo we have to update the whole thing sidoo kale haddaan map gelino for example mapka hadduu yahay maaragtay for example string something kabacdi value one it's not gonna work waayo waa inaan maaragtay before aana wax gelin waa inaad clearly waa inaadaan either waxa way integer string double ama sidoo wixii kale oo lamid ah marka taas why unstructured data hadduu datada uu yahay key value hadduu yahay maaragtay nooma shaqeynayo it's not gonna work waayo key value data is unstructured data marka waxay noqonaysaa inaan ka cararno SQL aan aadno NoSQL marka hadda waxaan ka hadlaynaa NoSQL marka NoSQL data code-ga aan ka hadlayna waxa waa key value pair excuse me so key value pair waxaan store dhahaynaa value ee keyga hodhowti haddaan data haddaan rabna inaan soo qaadano waxaan isticmaalaynaa keyga for example hadda waxaan haysanaa key valueguna waa kana hodhowti applicationku wuxuu sameynayaa waxaan isticmaalaynaa hash function waxaan u isticmaalaynaa to determine where to store data waayo waxaan rabnaa inaan collisionka waxaas ayaan rabnaa inaan ka cararno marka haddii oo maaragtay for example haddaan rabno inaan data gelino meeshaan oo hodhowti oo keyga yahay AAA hodhowti waa inaan new slot u raadinaa saa meesha uga helno marka waxaan sameynaynaa applicationka haddaan wax rabna inaan gelino for example this application wuxuu rabaa inaan helno B98 keyga waaye saan daarada ugu isticmaalno marka waxaan aadaynaa hash functionka ayaan waxaa dhahnaa halkee ayuu ku nool yahay keygan hodhowti kuu sheegaya okay keygan meeshan ayuu ku nool yahay hodhowti waxaan sameynaynaa daaradan ayaan soo qaadanayna marka key value pair example ahaan haddii aan aragno waxa waa Redis Amazon Dynamo marka even Firebase uu isticmaalaa key value pair marka key value pair waa fast retrieval haddii isla markii wax u baahannahay waxa muhiimadda waxa way inaan siino waxa way keyga right marka key ayaan siinaynaa keygaas hodhowti markaan siino wuxuu noo soo celinayaa value ayuu return dhahaya so in this case B98 markaan rabno inaan daarada soo qaadano hash functionka intaan ayuu nakeenaya this partition database hodhowti meeshan ayaan kasoo qaadanayna application advantages of key value pair waxaa fast query waayo haddaad if you know anything about data structure anything aa u baahannahay key maaragtay haddaad keyga siino wax kasta we don't have to maaragtay uma baahnin the whole database in aadno
keygaasaa siinayna hodhowti wuxuuna siinayaa data marka fast retriever weeye. Also key value pair wuxuu sameeyaa it handles high volume of unstructured data marka datadan it could be millions of data ayuu noqon karaa hodhowti doesn't matter waxaa u baahannahay bes keyga inaa siino aan ogaano hodhowti datada ayuu noo soo qaadayaa. sidoo kale maaragtay has function ayaan maaragtay isticmaali karnaa haddii aan maaragtay rabno partitioning ama data center adduunka dhan inaa haysano hadda one database meeshaan dhan waa data partition waayo hodhowti waxaa sameynaynaa keygan ayaan isticmaalaynaa hodhowti waxaa dhehnaa okay keygan partition 1 ayuu aadayaa hodhowti saan hodhowti maaragtay for example range ayaan isticmaalaynaa 0 to 9 wuxuu aadayaa this partition hodhowti 10 to 19 wuxuu aadayaa this partition 2 hodhowti haddaan rabno keyga haddii aan rabno key in between maaragtay 0 to 9 hodhowti waxaa sameynaynaa query ayaan waxaan ka sameynaynaa this partition marka saas ayaan u isticmaalsaa hodhowti marka the reason aan u isticmaalayna partition waxa waye scalability marka waxaan rabnaa maaragtay applicationkeena inuu maaragtay scale ama maaragtay haddii oo high volume ama applicationkeena haddii million of users haddaan isticmaalayno waxaan rabnaa multiple partition inaan haysano saan hodhowti databaseka maaragtay ana maaragtay one partition aan u ahayn hodhowti haddii if this partition fails we can use another partition. Drawback ama disadvantages waxa no complex query marka we can key value pair we cannot query or filter a specific item within database marka waayo waxaan sameynaynaa all we need is keygaas ayaan isticmaalaynaa ama furahaas ayaan isticmaalaynaa furahaas wuxuuna siinayaa value marka hodhowti valuegaas waa wax laakiin valuegaas gudihiisa maaragtay filter iyo waxaa kuma sameynayno marka all we need to do is furahaasi hodhowti waxaan helaynaa value. Okay marka haddii aan rabno maaragtay complex query waxaas haddaan rabno inaan sameyno waa inaan isticmaalnaa document database marka document database aad ayuu wuxuu ugu dhow yahay key value pair laakiin waxaan sameyn karnaa complex query ayaan sameynaynaa oo maaragtay database for example hadda waxaan haysanaa customer ID waxa weye 99 customer ID-gaas waxaan haysanaa document this document waxa weye key value pair waaye marka key value pair waa document for example keyga waxa weye title hodhowti titlekaas waxaa haysanaa Mr. Another key waxa weye first name Mark ayaan haysanaa another key waxa weye last name Hanson also addresska waxa weye another key value pair waa addresska hodhowti addresskan waxa weye another key value pair hodhowti waxaan haysanaa street address valuegiisa waa kaas city magaalada hodhowti sidoo kale waxaan haysanaa another key hodhowti kan waxa weye list weye marka saas ayaan document u isticmaali karnaa marka example of document waxa weye Firebase iyo MongoDB hodhowti document wuxuu naga caawinayaa large volume of data ayaan isticmaala datada hadduu aad iyo aad u badan yahay waa isticmaalaynaa sidoo kale maaragtay multiple waxaan helaynaa documentiga gudihiisa waxaan sii heli karnaa nested maaragtay key value pair sida for example addresska key value pair hodhowti uma baahnin maaragtay haddii aan maaragtay rabno specific data waxaa dhahaynaa customer ID 99 kiisa nasii kabacdi telefonka customerka haddaan rabno waxaan sameynaynaa markaas keyga waxaa dhahaynaa telephone right telefonkaas markaa dhahno hodhowti telefonkaas wuxuu leeyahay list marka haddaan dhahno index maybe 2 haddaan dhahno hodhowti wuxuuna siinaa 012 kan ayuu noo soo saaraya marka waa hodhowti queryga wuxuu noqonayaa complex ayuu noqonaya laakiin waa faster isla markii waan soo helaynaa. Another example waxa weye saan hadda codeka haddaan rabti saan ayaan ku sameynaynaa waayo waa document waa JSON file camal weeye haddaad la shaqaysay JSON database marka waxaad siinaysaa keyga for example keyga waxa weye customer ID kabacdi title Mr. weeye first name sidoo kale addresska waxaa keygaasna wuxuu leeyahay nested key value pair ayuu leeyahay marka document database waa haddii aad NoSQL isticmaalaysa waxa waa first choice waa choiceka ugu koowaad aad ku bilaabaysa document database hodhowti haddii aad rabtid
inaad kuwa kale si isticmaasho waxaa isticmaali kartaa key value pair. sidoo kale waxaan haysanaa column family. marka column family aad iyo aad ayuu wuxuu ugu dhow yahay SQL camal ayuu ugu dhow yahay, laakiin SQL haddaa aragno waxa weeye row based weeye, SQL row based weeye, laakiin column family waxa weeye column family database information stores information in a more column-centric approach than is possible most key value store ama document. So haddii aan document aadno, for example haddaan rabno retrieve inaan dhahno, the whole document ayaan wada helaynaa. This is it's not good, waayo waqti ayuu qaadan karaa. For example million document 1 million document haddaan haysano, hodoti query haddaan sameynayno 1 million kaas ayuu noo soo saarayaa, kabacdi 1 million kaas ayuu wuxuu ka bilaabayaa. For example haddaan raadinayno ID 99 waxaad ka soo qaadanaa 1 2 3 up to 99 markaa helno ayuu informationkana siinaya. laakiin column family waa independent waaye. waa haddaan for example haddii aan raadinayno customer ID 1 hodoti waxaan helaynaa intaan bes ayaan helaynaa. marka waa informationka isku dhow ayaan meel ku wada haynayna. marka haddaan akhrino inta wuxuu leeyahay you can structure the row as a collection of column and a single row column family base can contain many columns. marka for example hadda waxaan haysanaa column waa keyga weeye, kabacdi waxaan haysanaa another for example another column family which is portfolio in this example. marka kan waxa weeye key waaye, this is the key, hodoti valueguna waa kaas. marka column names kuwan marka column names weeye. column namekaas wuxuu noqon karaa ID ama key furaha aan ku raadinayno, kabacdi valueguna wuxuu noqonayaa kuwan ayuu noqonayaa. hodoti column familyga you can group related maaragtay column together into a column family and then you can retrieve column based on those multiple entries. marka micnaheeda waxa weeye waxaas informationka isku dhow ayaa hal meel isku keenaynaa saan hodoti query ama u raadino wixii maaragtay oo userkan kaasaan ku ah. for example userkan stock marketka wuxuu katay kan camal ayuu stock marketka hodoti furaha wuxuu helayaa maaragtay share inta share ayuu ku leeyahay pricekan ama stock market inta share uu ku leeyahay. marka column family waa wuxuu leeyahay flexible column. marka sida maaragtay row SQL rowgaas ma bedeli karto, waayo haddaan aragno maaragtay SQL rowga waa campus waaye. hodoti we cannot do any update, hodoti waa fixed way. This row is not flexible, wax ma ku bedeli karno, waa meeshaas ayuu joogayaa oo we cannot do any change. laakiin maaragtay column family waxaan haysanaa maaragtay waxaan haysanaa ID which is this rowgan waxa weeye ID-ga customerka weeye, kabacdi columnkan wuxuu noqon karaa anything uu noqon karaa. waxaan haysan karnaa document database ayaan isticmaali karnaa. hodoti document databasekaas wuxuu leeyahay fure key value pair. key value pairkaas complex query waa samayn karnaa. marka column familygana example haddaa rabta inaad column family isticmaasho waxaad isticmaali kartaa Cassandra query language ama SQL. marka column family wuxuu ku siinaya flexible column. marka columnka maaragtay you can do any changes, you can for a specific user. hodoti in the future haddaan rabno inaan search sameyno, hodoti userkan kaliya ayaan informationkiisa helayna. marka hadda waxaan rabnaa inaan kala ogaano the difference between column family iyo document or key value pair. marka examplekan ayaan isla arkaynaa, this example. marka examplekan marka hore waxaan helaynaa column family waxa weeye for example query ayaan sameynaynaa. waxaa dhahaynaa give us ama waxaana siisaa get identity first name last name where customer ID is 1. marka query waxaan raadinaynaa meeshu customer ID is 1 yahay. haddaan kusoo dhaweyno customer ID is meeshu 1 yahay ayaan helaynaa. kabacdi wuxuuna siinayaa first nameka iyo last nameka.
return ayuu intaan bes ayuu return na soo siinayaa, right? sidoo kale haddii aan rabno query 2 haddaan rabno portfolio waxaa u baahanaa portfolio inaan helno meeshuu customerka uu yahay 1 kabacdi waxaan helaynaa this column only waxaan helaynaa intaan information bes ayaan helaynaa. However haddii aan document database query haddaan dhahno, for example haddaan dhahno give us first name waxaana siisaa first name and last name meeshuu yahay customer ID is 1 hodoti the whole document database ayaan helaynaa marka hore. The whole document database traverse ama waa raadinaynaa kabacdi waxaan helaynaa meeshuu customer ID is 1 yahay. meeshuu customer ID is 1 yahay kabacdi ayaan maaragtay soo qaadanaynaa database. marka document database-ka maaragtay information ama query markaan sameynayno the whole document ayuuna siinayaa and this can slow us down information application-keena oo hoos ayuu maaragtay performance-ga ama maaragtay suu application u shaqeynayo waxaa laga yaabaa hoos inuu u tibdhaco. marka laakiin column family waxa u baahanaa bis specific users hadda userkaas hodoti columnkaas ID-giis hadduu 1 yahay hodoti waxaa helaynaa column family-gan wuxuu noqon karaa identity camal hodoti waxaan helaynaa meel kastoo identity uu yahay maaragtay customer 1 2 3 identity hodoti customerkaas ayaan helaynaa informationkii. marka labadooda maaragtay column family iyo maaragtay document family labadooda maaragtay advantages iyo disadvantages ayay wada leeyihiin. marka waxay ku xiran tahay maaragtay how flexible aa u rabtay ama saad u rabtay applicationkaas uu isticmaalo. haddii aad maaragtay rabtay inaa maaragtay querygaada uu yaro maaragtay flexible ama aad iyo aad u fiicnaado ama performance-ga aad u baahan tahay just specific set of maaragtay query haddaa u baahan tahay waxaad isticmaali kartaa column family. waayo column family-ga waxaad siinaysaa haddaan aragno group related column family marka wixii isku dhow ayaan meel ku haynaynaa saad hodoti query markaan dhahayno informationka hodoti isla markii u helno. laakiin document database wixii isku dhow meel iskuma keeni karno. marka haddaan query sameynayno waa inaan the whole documentiga dhan waa inaan raadinaa hodoti waa inaan isticmaalnaa where customer ID uu yahay 1 hodoti markaa documentiga raadino isla markii waa helaynaa. hadduu customer 99 ID-ga hadduu yahay 99 hodoti waa kuwaan dhan waa tuu maraynaa ilaa intaan ka helayno customer ID-ga meeshuu yahay 99. marka kaas waa si u kala duwan yihiin waaye column family iyo document ama key value pair. hadda waxaan ka hadlaynaa graph database. haddii aad aragtay waxaan ka hadlaynaa SQL waxaan dhahnay SQL waxa waa relational database. of course waa isticmaali kartaa relational database waad isticmaali kartaa SQL. for example waxaad haddii maaragtay informationka isku dhow yihiin waxaan isticmaali karnaa relational database hodoti query ama join ayaan isticmaalaynaa saan iskugu keeno multiple tables aan isku hal meel normalization ama denormalize aan ku sameyn karnaa database-ka saan hodoti 1 table aan ku helno. laakiin kaas way adag tahay processka wuxuu qaadan karaa waqti dheer waayo programka ama maaragtay database-kaada slow ayuu noqon karaa ama aad iyo aad ayuu u cuslaan karaa. marka that's why we have graph database. marka graph database waa relational database way. for example haddaan akhrino waxaa graph is a connected network of node. marka waa node isku oo connected oo xiriir isla leh weeye. xiriirkaas wuxuu leeyahay information about specific entity hodoti informationkaas xiriir ayay isla leeyihiin oo xiriirkaas relationshipkaas wuxuu noqon karaa waxay xiriirka iskula leeyihiin. for example node department waxa weeye waa one node weeye. nodekaas xiriirkooda waxa weeye employee. marka kan waa department kanna employee way. marka relationshipkooda waxa weeye employee works at this department. marka example haddaan helno haddan employee-ga magaciisa waxa weeye Louis weeye. Louis wuxuu u shaqeeyaa works for Susan.
marka relationshipka waxa weeye works wuxuu u shaqeeyaa Susan sidoo kale Susan manages Louis relationshipkooda waxa weeye manages marka Susan waxa weeye a manager weeye marka managerkaas wuxuu shaqaysiiyaa Louis marka Louis saacadiisa marka dhamaato ama labada isbuuc lacagtiisa ayuu u tirayaa marka relationshipka Louis iyo Susan waxa Louis wuxuu shaqeeyaa Susanna waxay maamushaa Louis marka relationshipkooda waxa weeye saas sidoo kale haddaan aragno maaragtay relationshipkan Louis iyo Sarah marka haddaan aragno Susan waxay u shaqeysaa Sarah works for Sarah and Sarah manages Susan marka haddaan aragno kan waxa weeye employee right kan wuxuu noqon karaa supervisor ayuu noqon karaa for example kan wuxuu noqon karaa manager ayuu noqon karaa relationshipkooda saas weeye sidoo kale haddaan aragno relationshipkan waxa weeye Sarah works in department head office marka waxaa laga yaabaa Sarah inay tahay maaragtay managerka weyn oo dadka hire gareeya sidoo kale relationshipkooda head office employees Sarah hodoti head office-ka waa departmentigaas shaqo wuxuu siiyaa Sarah marka relationshipka saas weeye marka xiriirka u dhexeeya between two different nodes marka graph database are specially designed to store information about the relationship between nodes and enables application to use this information to traverse a graph extremely efficient marka graph database waa maaragtay haddii aan rabno informationka relationshipka labada qof u kala dhexeeya isla markii aad iyo aad ayaan u helaynaa waayo haddii aad maaragtay data structure aad isticmaashay marka haddaa qaadatay any classes oo data structure binary search kuwaas waa highly efficient weeye their maaragtay time complexity to get log n marka waa the really efficient waa aad iyo aad ayuu u fiican yihiin oo maaragtay haddii aan information raadinayno labada qof xiriirka u kala dhexeeyaan isla markii waan helaynaa anagoo raadinaynaa for example haddaa dhahno give us employee department node qofku employee siiyo hodot waxaan soo saaraynaa Sarah isla markii it's really quick marka graph database haddii wix relationship waxaas aad sameynaysid saas ayaad u qaadan kartaa example of graph database neo4j weeye neo4j waa maaragtay enterprise application waa aad isticmaali kartid haddii aad rabtay applicationkaada saad maaragtay connection ama relationship database haddaa rabtid inaad sa samaysid neo4j ayaad maaragtay u isticmaali kartaa marka common use for database marka for graph database marka social networking haddii aad Facebook isticmaashid Facebook is all about social networking connection relationship people who your friends who do you follow kuwaa dhan waa Facebook marka Facebook haddaad maaragta qof friends la tihiin on Facebook qofkaas marmar suggestion ayuu ku siin karaa your friend Ahmed ayaa wuxuu la saaxiibsanaya qofkan marka maybe you should follow this person ama marka social networking wax kasto relationship iyo connection waxaad haddaad isticmaalisid waa graph database ayaa isticmaalaysaa sidoo kale calculator routes haddii aad map iyo waxaad isticmaalisid waxaan heli karnaa shortest path aan ku aadi karno from A to B right from point A to B marka waxaan isticmaali karnaa graph horati graphkaas wuxuu noo soo saaraya maaragtay the shortest path aan ku aadi karno for example haddii aan haysano maaragtay for example we have a graph like this right marka waxaan rabnaa shortest path to go marka waxaan saas ayaan u samayn karnaa marka graph is really amazing waaye waa is really powerful sidoo kale maaragtay recommendation engine ayaan samayn karnaa haddii aad Amazon isticmaashid Amazon allows you to get haddaa for example information haddaa ka talbatid dhar ama books waxaas hodoti next time aad kusoo laabato wuxuu ku dhahayaa similar books aad talbatay ama ayuu recommendation kuu siinaya wuxuu ku dhahay buugyadii hore aad talbatay kuwaan lamid weeye marka waad dalban kartaa sidoo kale data mining ayaan haddii aad maaragtay rabtay inaad maaragtay trends wixii maaragtay aad rabtay datada analyze inaad ku samayso for example top 10
users in the world ama maaragtay top best restaurant ama maqaaxida adduunka ugu fiican oo laga cuno markaas horoti informationkaas ayaa isticmaalaysaa horoti wuxuu ku siinayaa the trends horoti wixii information data analysis iyo kuwaas ayaa ku sameynaysaa iyo machine learning iyo kuwaas ayaa data mining ayaa ku sameynaysaa horoti wuxuu ku siinayaa relationship between maaragtay informationka oo kala dhexeeya marka the million question is which database should you use database ayaad isticmaali kartaa oo ugu fiican right marka jawaabtan waxa weeye answerkeedu waxa weeye it depends marka waxay ku xiran tahay requirementiga oo applicationkaada ayay ku xiran tahay requirementiga aad u baahan tahay application haddii for example haddii aad rabtid bank statement bank app haddii aad rabtid inaad samaysid of course you have to use SQL waayo bank app waxaad u baahan tahay inuu ahaado consistency right it supports asset waayo waxaa rabnaa haddii aad maaragtay deposit haddaan dhahno lacag for example $20 haddaan deposit dhahno isla markii lacagtaas waa inuu applicationkeena ku dhex jiraa sidoo kale withdraw haddaan lacag kasoo saarano update waa inuu dhahaa sidoo kale maaragtay haddii aad maaragtay transfer lacag haddaan u tirayno from account to saving waa inuu isla markii maaragtay lacagtan waa inuu maaragtay waxaan ku bedelan waa inaan helnaa oo everything should be maaragtay consistent for example haddaan lacag haddaad $20 aad gashano lacagteena hodoti aan helno $1 million hodoti consistent maaha waayo wax qalad ayuuna siinayaa marka I will help you haddii aad rabto inaad isticmaashid which database to use waa inaad isticmaala cap theorem waa wuxuu ku siinayaa cap theorem wuxuu sheegayaa a system should have 2 out of 3 of this marka systemka wuxuu noqon karaa consistency iyo partition ama wuxuu noqon karaa consistency iyo availability marka you have to choose waa inaad doorataa big 2 ama waa inaad doorataa maaragtay consistency iyo partition waa inaad doorataa C iyo P ama waa inaad doorataa C ama A ama waa inaad doorataa B ama A marka how do you choose marka for example haddii aan rabno social network ama Facebook camal inaan sameyno marka haddii Facebook inaan sameyno marka I need to choose partition iyo availability waayo waxaa rabaa maaragtay applicationkeeya inuu noqdo availability 99.99% inuu noqdo iyo partition waa inuu maaragtay failure hadduu for example one maaragtay data center hadduu maaragtay for example this data center hadduu fail noqdo waxaa rabaa another data center inaan isticmaalo marka partition tolerance marka hadduu wax dhibayo waxa hadduu dhaco waxaan isticmaalayaa partition badan oo maaragtay hodoti haddaa rabo userka hadduu rabo inuu query dhaho laakiin application this partition is not working kabacdi kan ayaan u tiraynaa marka sidoo kale haddii aad rabtid partition iyo consistency so you don't care about availability uma baahna muhiimadaada availability maaha laakiin waxaa rabtaa inuu noqdo partition fault tolerance haddii any failure waxa hadduu dhaco waxaa u baahan tahay backup plan ama meel kale inaad data centerka ka raadsatid iyo consistency haddii aad wax bedeshid waxaa bedeshay update isla markii inuu noqdo kabacdi waxaan isticmaalaynaa partition iyo consistency marka wuxuu ku xiran yahay at the end of the day wuxuu ku xiran yahay waxa weeye maaragtay your requirement marka haddii aad maaragtay bank app oo sameynayso oo muhiimada uu yahay consistency iyo availability kabacdi you need to use my SQL waayo waxaa u baahan tahay wax kastoo update ku samaysid it has to be there 99.99% available marka waxaad sameynaysaa you use SQL ayaad isticmaalaysaa laakiin if you don't care about availability hodoti aad leeyasid okay waxaa u baahanahay applicationka inuu noqdo consistency iyo partition kabacdi waxaad isticmaalaysaa MongoDB iyo maaragtay Firebase iyo Redis all of this ayaa isticmaali karta waayo
hataa muhiimadda haddaysan ahayn availability hadduu systemkaada go down ama systemka hadduu xumaado hodhowtii availabilityga inaysan muhiimad ku ahayn laakiin haddii oo muhiimadda tahay partition iyo availability kabacdi you have to use B and A hodhowtii waxaa isticmaali kartaa Cassandrana waxa weeye column family weeye column family hodhowtii partitionka fault tolerance hadduu any failure hadduu dhaco waxaa haysataa multiple database ayaan haysataa partition P1 P2 P3 and availability 99.99% waxa weeye available waa applicationkaada hodhowtii haddii wax dhacaan hodhowtii isla markii data waxaa aadaysa another partition ayaad search ka soo dhahaysaa marka waxay ku xiran tahay research inaad samaysid before intaan applicationka samayn ka hor research samee requirementiga soo qaado hodhowtii choose two laba waa inaad ka doorataa meeshan you have to choose 2 out of 3 so 2 out of 3 waa inaad doorataa hodhowtii tii kula muhiimsan ayaad dooranaysaa hodhowtii markaasaa database isticmaalashaa marka waxaan rajaynayaa inuu maaragtay kaa caawiyo application databaseka muhiimadda waxay kala yihiin iyo saa u dooran lahayd marka I hope this was helpful video marka insha Allah wixii su'aali waxaas commentiga soo geli I'll try my best to answer insha Allah waa mahadsantihiin jimco wanaagsan